fanku waxa uu ka mid yahay waxyaabaha isku soo dhaweeya bulshooyinka kala dhaqanka duwan oo meel wada degan. goobtan aan ku sugnaa waxa lagu magacaabaa xarunta dhaqanka ee Siidar, waxayna in badan ku soo casumaan halkan fanaaniinta ugu magaca weyn Soomaalida si ay bandhigyo ugu qabtaan. habeenkan dhaqanka Soomaalida loogu magac daray ayaa lahaa 3 nooc faneed oo kala duwan. barnaamijka caawa soo dhigno wuxuu ahaa Soomaali traditional, macnaha hidaha iyo dhaqanka Soomaalida isugu jiray. waxaad arki jirtay Mari Mursal iyo Cabdiqaadir Jubiyo muusig cadaan u tumayaan oo muusig live la tumayo, laakiin kan caawa ka duwanaa barnaamijka hore oo wuxuu ahaa barnaamij la tumayo kabankii, buraanburkii iyo ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka intaba. marka wuxuu kaga duwan yahay kuwii hore. music contemporary music baa la tumayay oo live waa kaban iyo bongo iyo hees la heesay. wuxuu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Kaahiye oo loo yaqaan Xarbi, kana mid ah ragga musiga xilliga badan tumayay, isaga oo sharaxayay barnaamijkan goobtan lagu soo bandhigay iyo wuxuu kaga duwanaa kuwii hore loo qaban jiray oo qalabka korontada u baahan lagu tumi jiray. Xarbi wuxuu in badan dad Maraykan ah la tumay heesaha Soomaaliga, waxaana weydiiyey sida ay u bareen dadkan tumista musiga Soomaaliga. waxa jira waxay tahay musigu waa international language, waa luqadda kaliya oo madow iyo cadaan lagu wada hadlo iskuna afkarto. laakiin waxoogaa musigeena uu ka duwan yahay muusigada kale adduunka, because musigeena waa 5 xarig baan tunaa. adduunka musig gabi ahaan waa 7 note waaye, laakiin anaga 5 baan tunaa. marka xafidaadii markaan ay muusigada qoraan oo ay muusigada aan siino tuman ay soo xafidaan ay soo qoraan meel yar way ama dib u dhacaan ama hore u soo maraan. intaas baan ka saxnaa markii aan barowada galayno. bandhigan dadkii ka soo qayb galay ma ahayn Soomaali qura, waxaa goobta ka muuqday dadyow kala duwan oo Minnesota wada degan. Cabdul Ibrahim oo ka howlgala xaruntan dhaqanka ee Siidar ayaa inoo sharaxaya dadkii aan Soomaalida ahayn sida ay bandhigan u arkeen. dadka cadaanka ka soo qayb galay xafladan aad bay u heleen. dad badan oo la sheekaystay oo cadaan ah oo caawa joogay xafladda waxay la yaabanaayeen buraanburka, oo la yaabanayeen si dadku dumarku markay buraanburayaan qofku buraanburaya dadka kale ay ugu boodayaan traditional dance-ka ayaan u sharaxay caawa dhan. marka aad iyo aad bay ugu heleen. hooyo Mulki Xuseen oo ilmaheeda keentay goobta bandhiga ayaa qabta in kulamada noocan ah caruurta ay barayso in halka ay ka soo jeedaan ay leedahay dhaqan iyo fan kaasoo isku xiraya iyaga iyo waalidkood isfahan dhexmara. horta ma ogtahay dadku inay fahmaan dhaqanka iyo luqadda qofku way ku kabtaa in waalidka iyagu xataa isfahmaan. saas darteed aniga waxa aan aaminsanahay dhaqanka ay arkayaan waxay dareensiinaysaa iyaga laftigooda, macnaha meesha connection bay sameynayaan halkay ka yimaadeen iyo luqadii iyo cayaarihii iyo hadda caaw waxay maqleen dhaantay maqleen sharaxay maqleen buraanburay maqleen. waa marka dambe haddana ay meelahan oo kale yimaadaan intii oo kale maqlaan iyaguna wax isku dayayaan markaas inay iyaguna ay laftigooda ay connectionkaas ay sameeyaan, ay ku raaxaystaan, ay ogaadaan dhaqankooda iyo afkii Soomaaliga oo isku xirmaaya. taasna qofka waxay ka saacidaysaa jiritaankiisa iyo inuu identitygiisa asaga qof ahaan shakhsiyaadkiisa aysan dhumin. sugaanta haweenka marka laga hadlayo waxa ugu horeeya buraanburka, wuxuuna ka mid yahay waxyaabihii lagu soo bandhigay halkan. dadka ajnabiga ahaa ee caawa halkan joogay waxa ay tumayeen sacabka, ma aysan boodayn sida gabdhaha Soomaaliyeed yeelayeen. haddaba Caasha Cabdi Axmed, Caasha buraanburtooy loo yaqaano oo iyadu tirinaysay buraanburka, ayaan weydiiyey buraanbur iyo waxa ay halkan ku soo bandhigtay waxa uu ahaa. buraanburku waxa waaye sugaanta Soomaaliyeed buu ka mid yahay, sida gabayadoo kale heesahoo kale baa buraanburkana uu uga mid yahay. hadda laakiin dumarku qaas u yahay. dumarka Soomaaliyeed waa hidoodii dhaqankooda waxaan ku duceynaa, waxaan ku inta badan waxaan ku tilmaanaa wadaninimo. sacabka gabdhaha Soomaaliyeed hanaankoodan jeclahay, gabdhaha Soomaaliyeed hormuudkoodan jeclahay, gabdhaha Soomaaliyeed.